السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaalkeena iyo ama cashirkeena weli waxaan ku guda jirnay barashada graphic design gaar ahaan softwarekeena Adobe Photoshop CC 2024 cashirkan ama muuqaalkii ka horeeyay waxaan ku qaadanay sida loo sameeyo poster gaar ahaan waxaan ku qaadanay sida loo sameeyo ID card muuqaalkeena ama cashirkeena maanta ama waxaan ku qaadanay sida loo sameeyo poster design ama poster social media ayaan ku qaadanay tusaalahan waa course graphic design oo sample aan soo qaadanay inta badan markay poster sameeyaan way kala duwan yihiin hadba waxay ku xiran tahay client-ga ama customer-ka oo shaqeynaysid laakiin waxaan sameeynaa mid kamid ah sambaladii aan sameyn jirnay ayaan sameeynaa intaan ku gudan jirno casharkan ayaan isla fiirinaa okay waxaan sameeynaa anaga file aan tagay ugu horeen waxaan sameeynaa kan oo kale ayaan sameyn doonaa mock baan geliyay hadda aniga laakiin software-ka noo soo fakatay file aan tagayna sida adiga file marka new aa leedahay new marka dhadid poster si aan kala duwan yeelan karaa أنا هذا waxaan tagayaa kuwan web aan tagayaa web marka tago mid kamid kuwan iska dooran doona cabirkiisu wuxuu noqon doonaa cabirkan iska qaadan doona hadii adiga waxaad sameyn kartaa inta tagtid kuwa printiga aad tagtid ama waxaad sameyn kartaa inta tagtid waxaad sameyn pixel dooro kadib waxaad ka dhigtaa 1080 1080 ka dhig meeshan sidoo kale hoostan xariirta 1080 leenahay inta badan default waxa la isticmaalaa social media gaar ahaan Facebook iyo Instagram marka laga hadlayo resolution waxaan leeyahay 300 ku deyn doona RGB color maadaama social media dhiga kadib kareedaan leeyahay magaca u baahan aniga adila hadarta magaca u baahan kartaa hada joog iyo kan kaas hadda aan sameeyay wuxuu ahaa G5 control 0 ama control minus kadib soo dhaweyso okay waxaan u baahanahay inaan sameeyo midkan oo kale aan rabaa inaan sameeyo maxaa sameeynaa ugu horreyn waxaan tagaynaa shii aan tagaynaa kadib rectangle tool soo qaadan doona halkaan imaan doona kadib waxaan sameyn doonaa halkaan asaas ugu sawiri doonaa okay ila geesa marka kadib control T aa leeyahay mama usaasi ay soo bixin sumata automatic halkaan ageen doona sidoo kale kolkan halkaan ageenina okay color fill diga rabnaa inaan ka bedelo maxaa sameeynaa colorka waa ka bedelay kana ka dhigana colorka maadaama aan bedelay kana ka dhignay ama jaalaan oo dhigaalanahay marka geesaha control T inta dhaano waxaan sameyn doonaa geeskan waa dhaafsiin doona banaanka ageen doona stroke rabaa inaan sameeyo stroke-gaasna waxaa rabaa inuu ka soo muuqanaya rabaa saddex banaanka ageen doona okay inta marka sameeytida soo qaadan doona kadib waxaan sameyn doona maadaama kaas aan rabo oo marka noocan oo kale inaan sameeyo aan rabo kadib waa jidi doona control T da ko marka hore kadib markay ku soo qabo kan kadib waxaa sameeysa kan qaada leenahay halkan geeya leenahay kalaas amalgee soo kale kan waxa leenahay hoos soriya leenahay dabcan aan jana kwanta lagu firiyay oo kan tagayata okay intaan sameeyay waxa kale rabnaa inaan sameeyno stroke rabnaa inaan sameeyno shape-ka waxaan tagay rectangle ka tagay yes marka hore isbedelka sameysay oo ku diin doona kadib waxaan sameeynaa rectangle waxaan sameeynaa stroke marka aan sameeyno stroke soo gaara soo jeedina ilaa halaas gaarsiin doona okay inta marka stroke sameeyo kadib waxaan mid kale inaan copy ka sameeyo control J lahayd keyboard ka taaban doona control J layer ka daatagno wax lama sameeyn hadda aan halkan joogo waxaan sameeynaa control J si automatic mid kale lagu sameeyo marka midkan hoose copy ma midkan kale aan rabaa aniga ina colorka ama strokes ina bedelo marka kan kore oo copy aan tagay doona kadib waxaan saari doona qof la saari doona iska xir doona inuu dhaqaaqa diida marka soo kan hoose ay maanayna kadib waxa hoos soo bixin doona hoos soo bixin doona kan hoos marka soo bixiyo ogaado colorkiisa waxaa sameyn doona wax yar dib awelin doona oo beena ina sameeyo kadib waxaa sameyn doona double click ku dheh waxaa sameysaa colorkiisa waxa ka dhigtaa bedel colorkiisa waxa ka dhigtaa leenahay aniga colorka noo dhigaa leenahay colorkiisa waa bedel okay soo kale waxa sameeynaa stroke waa bedel aniga rectangle tool tagayna kadib stroke waxa ka dhigi doonaa colorkan ka dhigi doona oo colorkan kale ayaan ka dhigaynaa okay maadaama colorka aan bedelin ama kan kale oo hore aan tagi doona sorry kana tagi doona qofka qaadi doona kadib asana stroke waa bedel doona xariir doona white aan ka dhigi doona labada waxa rabaa inay isku soo baxaan marka say isku soo baxaan waa ka labadii sana soo okay waxa rabaa inay sawir soo geliyo sidee sawir soo geli karaan double click adoo kor joogto waxa sameeysaa file tagaysa kadib beleys sawir soo gelin anaga halkaan tagi doona download ka tag kadib waxa sameeysaa aniga mid kamid ah sawiradan ayaan soo gelin tusaale graphic design ka soo gelin leenahay
okay sawirkaan aan soo gelinayo waxaa laga yaabaa waqti inuu qaato saas darteed okay sawir maadaama aan soo gelinay sawirkan halkaan uu yaala xaggan aan geyn doona halkaan markaa kadib waa la right kaliya ku leeyahay right kan markaa kaleed waxaan dhihi doonaa clipping mask ayaan leeyahay si automatic u dhexgali doona okay meeshan kale ii banaa ayada maxaan sameynaa double click dheh marka la file aan tagaynaa kadibna baleysaa leenahay mid kale soo qaadi doona oo sawir kale ayaan soo qaadana sawirkan graphic design soo qaadi doona asagana baleysaa leenahay midkan kale ayaan soo gelin doonaa okay maadaama kan aan soo gelinay kadib asina waa soo qaadi doonaa halkaan aan keeni doonaa kadib waxaan sameyn doonaa anoo meeshan jooga waa weyneyn doonaa kadib markaa weyne waxaa leeyahay right kaliya ku leeyahay kadibna waxaa leeyahay create clipping mask aan leeyahay labadaba waa banaankay soo mari doona okay maadaama labadii clipping mask aan ka sameynay waxaan tagi doonaa softwarekeena hore ayaan tagaynaa okay waxaan rabnaa inaan ogaano waxyaalihii aan sameynay ayaan rabnaa inaan ogaano tusaale hadda kan aan sameynaynay soo hadii aan fiiriyo inta soo fur kadib waxaa sameysaa kana soo furaa leenahay kan markaan sameynay waxaan sameynay loogadii aan soo qaaday marka loogada aniga waxaan sameyn doonaa kanaa ka soo qaadan doona loogada aan tagi doonaa loogada maadaama marka aan dul tago maadaama halkan aan joogay kadib loogada aan dul tago kadib waxaan ku sameyn doonaa hadda loogadan layerkeeda ama looga ku xiran marka maadaama loogadeena loogay ku xiran tahay loogadan ka qaadi doona halkaan ay taalaa fiiri magaceeda raadi ana laakiin uma baahani halkaan aan tagi doona kadib waxaan sameyn loogadan soo geli doona file aan tagi doona kadib waxaan leeyahay baleysaa leeyahay loogada xagee taalaa desktopkeena tag kadib halkaan waxaa ka raadaysaa poster ka raadi poster resource image halkaan ka raadi halkaas loogadeena soo qaadaa leenahay loogadana backgroundka kasoo tuuray markii hore backgroundkeeda background kala lahayd kadib yareysaa leenahay halkaan geey leenahay okay loogada halkaan markaa kadib samidaa leeyahay okay adhihi doona okay waxaa kale u baahanahay inaan soo qaadano magac qoraalkan aan rabnaa inaan soo qaadano qoraalkaas ayuu soo qaadan karaa baro graphic design waa anaga marka qoraalkan si automatic double click adhihi doona kadib control c leeyahay copy sameyn doona adiga dabcan waa soo qori doontaa hore muuqaalo horena waa soo sheegnay oo halkaan imaan doonaa kadib waxaa leeyahay control v halkan kule oo ah basta aan ula jeedo okay qoraalkan hadda uma jeedo sababta maxaa waaye qoraaladiina kore oo ayaa ka hooseeyo marka qoraalkeena hooseeyo marka saddeed control iyo waxaa isla qabataa iyo shift isla qabo kadib arrow taabo keyboardka arrow taabo kadib qoraalkaada kor soo mari doonaa qoraalkaada kor ayuu soo mari doonaa control z hadda qoraalkan waa kana halkaan uu yaala waa weyn waa fartiis marka siskiis maadaama uu weyn yahay aniga waxaan ku dhihi doonaa double click dhihi doonaa maadaama siskiis weyn yahay waa yareyn doonaa xogaa waa yareyn doonaa eliyar ayaa leenahay siskiisa halka marka waxaa sameysaa double click ku dheh qoraalka dooro markaad doorid kadib waxaa sameysaa saan yar ayaa leenahay ilaa halaasa gaarsiin doonaa program design waaye weli waxaan sameyn doonaa double click dhowli mar kale waxaa sameysaa qoraalkan ilaa halaas gaarsiin leenahay okay halaan aan sameyn waxaa kale u baahanahay creative graphic design soo qaadan qoraalkan yar raacsan waxaa leeyahay control c leeyahay waa soo koobiyin doonaa sigana kadib waxaa imaan doonaa anaa qoraalkii soo qaadan doono ama t ama text soo qaado kadib halkaan imaan kadib qoraalkan kugu soo ba control v halkan ku dheh control v marka maadaama uu yahay control a dheh sigana qoraalka maadaama size-kiisa uu weyn yahay waxaan sameyn doonaa size-kiisa yareyn doonaa ilaa halaasaan gaarsiin doona control 0 dheh saqalo kale ama control plus dheh saa aragtay qoraalkaada inuu weyn yahay in kale had kuu leegyahay kadib waxaa sameyn doonaa hoosaan ka geliyey halaasaan malaageyn doonaa kadib double click saddex waa qoraalka size-kiisa waxaan kala geli doonaa ilaa 5 camal ilaa 5 camal gaarsiin doonaa aniga 5 camal ku deyn doonaa okay 5 markaa ku daayo kadib control 0 leeyahay si aan u arko qoraalkii okay waxaa kale u baahanahay qoraal kasta oo soo qaadan halkan ka soo qaadan aniga ku baro graphic design si bilaash ah qoraalkan aan soo qaadanaa mar kale double click leeyahay control c leeyahay oo copy ah kadib halkan ayma adii dabcan qoraal soo qor waa taqaanayo qoraal soo qoro tartiibka qoraalka qor control v halkan ku dheh qoraalka halkan aan leeyahay control a dheh dooro select all control a dabcan shortcuts ina baratid muhiim waay adeeg ku anfaa hadda qoraalkan uu kala weyn yahay marka maadaama uu kala weyn yahay waxaan tagi doonaa characteristics aan tagi doonaa kadib qoraalkeena waa la isku dhaweyn doonaa maadaama uu kala fog yahay labada qoraal is hoos yaala maadaama ay kala fog yihiin waa la isku soo dhaweyn doonaa
ilaa halahaasaan geyn doona aniga kadib waxaan leeyahay waan soo qaadaya halkaan keenaya. Okay, intaas markaan sameeyo waxaa kale u baahanaa inaan sameyno numberska inaan soo qaado. Numberska intaan soo qaado waxaa u baahanaa kan inaan sameyso shape-ka yar halka yeelo inaan sameysto u baahanaa. Okay, see u sameyn karaa waa shape rectangle tool soo qaado kadib halkaan la imaa tartiibkaada mahaska waa leh halkaan la soo dhigo. Ma u baahan wax kale inaan sameysid kana soo qaad halkaan dhigtay. Maxaa u baahanaa marka double click dheh kalarka waa ka dhigtaa ka dhigaa leenahay maadaama loogu background-kan uu yahay kalarka kana soo qaad halkaan keenaa leenahay kadib control T da waxaan sameynaynaa wax yar kana gaarsiin doona. Okay, maadaama kan aan la ekeysiinay kadib waxa qoraalkeena kana koreeyo marka waxaan rabnaa inaan ka hoos marino kadib waxaan taaban doona control plus shift plus calaamada open bracket arrow-ga taaban doona si automatic marka hoos la marin doona. Marka aniga background-ka kaliya rabaa inaan ka hoos mariyo layers-kan tagi doona kadib waxaan sameyn doona control C da control shift adoo lahay arrow taabo kadib waxaa sameysaa. Okay, hadda waa ka hoos martay maadaama ay ka hoos martay kadib waxaan ku laabanaynaa qoraalkeena hore aan ku laabanaynaa design-ka hore aan fiirinay design-ka hore maadaama aan fiirinaynay halkan waxaan qoran chorus ku qoran halkan soo kale inta shape ayaan shape-ka horta marka hore sameynaa halkaan aan tagi doona kadib shape rectangle tool soo qaadan doona halkaan asaas ugu sameyn doona rectangle tool yar ayaan sameyn doona rectangle tool yar aan sameyn doona marka asaas uu sameeyo kadib waxa way halkaan aan keenayaa wax yar waxaan control T aan leeyahay qoraalka ama size-kiisa wax yar ku daraan leeyahay hore ilaa halaas gaarsii wali waxa ku daraa control T da marka la ku laabo si isbedelka oo sameysid ilaa halaan gaarsii. Okay, halkaan marka joog control T marka ku laaban doona kadib waxaan ku sameyn doona 9 degree baa wareejin doona oo wax yar wareejin doona. Okay, marka saas wareejiyo colorka marka waxaan sameyn doona wali control T da wax yar saan wareejiyaa leeyahay. Okay, waa la ii wareeji maxaa sameyn doona marka maada kale la ii wareeji waxa anoo alt lahaya mid kale code ka sameyn doona halkaan dhigi doona halkaan dhigaa leenahay sidoo kale mid kale sameyn doona sidana horta kan meesha noo dhig kadib alt dhabsi markaas muskil la qabo mid kale dhigaa leenahay marka kan waxaa sameyn doona mid kan waxaa ku aadin doona kana ku aadin doona kan waxaan sameyn doona kor wax yar iska doona kana ku aadin doona. Okay, kan waa soo qaadi doona halkaan keenay. Okay, labadan shaybiska yar oo inta keenay waxaa raaso inaan soo dhageliyo soo dhaxgeliyaa raaso soo dhaxgeli kara marka kan double click dhigi doona double click marka dhaw kadib file aan tagi doona kadib place aan leenahay dabcan waa boobsin doona maadaama aanan rabin inuu muuqaalka dheeraado saas darteed marka halkaan tagi doona wiilkan sawirkiisa soo gelin doona dabcan si loo soo geliyo waa taqaana kadib marka sawirka soo geliyo waxaan sameyn doona. Okay, marka soo geliyo kadib waxaan sameyn doona sawirku maadaama uu weyn yahay aadi u yaree ilaa halaas gaarsiiya leenahay soo qaad halkaan keen wali waxa waaye si yar ayaa leenahay shape-ka ku aadin doona geesaha wax yar weynay kor wax kasoo yaray geeska weynay ayaa leenahay soo kale koosan kasoo yaray. Okay, layerska soo furo kadib waxaa tagtaa adoo joogo sawirka jooga waxaa sameysaa right click u dhigi doontaa kadib waxaa ku sameyn doontaa create clip mask ku sameyn doontaa oo ah halkaan joogo kadib right click u dhigi doonaa kadib create clipping mask ka sameyn doona si automatic halkaan dhex gali doona. Maxaa sameeyana marka aniga wax yar saan soo celiyaa leenahay wiilka si loo arki karaa sameyn doona. Okay, hadda waa loo jeedaan jeclahay midkan kale tagi doona asigana waxa waaye file aan tagaynaa kadib place aan leenahay waxaan soo qaadanaynaa sawirkaan soo qaadanaynaa asigana waa soo gelinay sawirkan waa social media soo qaadan doona kadib maxaa sameyn doona right click leeyahay kadib marka right click clip mask leeyahay si automatic wala gali doona maadaama kan aan soo gelinay kadib asana waxaan sameyn doona kor galan doona qoraalkiisa yareen doona ama size-kiisa aan dhahay sorry size-kiisa noo yareen halkaan okay halkaan ku aadin doona kadib waxaan sameynaa right click ku dheh kadib waxaan sameeyay create clipping mask ku sameey asaga soo kale waxa ku sameysaa kan si fiican soo aadi control T dheh qoraalkiisa weynay leh sidoo kale halkaan waxaan geysay ilaa halaas geeyaa leenahay. Okay, intana saas weynay leh. Okay, kadib jeegaan saaran ama sameyna leh. Okay, kana rabnaa inaan soo gelino sina mid kale mid kasta aan sameeyno waxaan sameyn doonaa log aan ku xiri doona kadib kana tagi doona kadib waxa la yiraahdaa file aan leenahay place aan dhigi doona kadib waxaan sameynaynaa wiilkana soo gelin doona oo mid kale ayaa soo gelin doona sawirkan. Okay, sawirkan wiilkaan soo gelin doona. Okay,
isaga markaas soo geliyo asina waxaa samayn doonaa size-kiisa yareyn doonaa kadibna waxa waaye halkaas create clips mask ku sameyn. Okay, maadaama uu soo galay kadib asina waxa waaye waa yareyn doonaa size-kiisa ilaa halkaas marka la ekeysiyo halkaana keeni doona. Soo kale waa yareyn doonaa ilaa halkaas la ekeysiyo kadib right kale ku dhaw wiilkan asagana waxaa sameysaa create clipping mask ku samee si automatic halkaas u dhex gali doono. Okay, markuu dhex galo kadib maxaa sameynaysaa loog saaro. Okay, maxaa kale u baahanahay inaan soo qaado? Okay, waxaa u baahanahay course-kan rabaa qoraalkan yar rabaa inaan soo qaato control C dheh soo koobeyso halkan keena leeyahay. Halkan markaa keeno halkaana keeni doona kadib halkan ka sameyn control V aa dhigi doona. Maadaama size-ku uu yahay waxaan sameyn doonaa size-keeda ayaan yareyn doonaa. Kalarkiisa ayaan ku deyn doonaa kalarka haanta halkaana dhigi doonaa. Okay, labadaas arrangement yaryarka rabaa inaan sameeyo midaan oo rectangle tool ka sameyn doonaa ilaa halkaas la ekeysiin doonaa. kalarkii hadda waxaa waaye maadaama uu kalarkii hadda tan yahay buluug control C dheh Z dheh aan dhehe background-kan iska haliyey control Z weli. Okay, kana marka looga saari doonaa sigana soo kale soo dhaqdhaqaaqin. Okay, kadib waxaa rectangle tool tag soo laabo mar kale waxaa sameysaa halkan waxaa ku sawirtaa rectangle tool yar ayaa halkan ku sawiri doonaa oo halkaas leh. Okay, maadaama aan sawiray kadib waxaa sameyn doonaa kana soo qaadi doonaa waxaa keeni doonaa halkaana keeni doonaa. Okay, alt anoo lahaay mid kale ka sameyn doonaa kana ku aadin doonaa kan kale kan ku aadiyaa leenahay kana ku aadiyo. Okay, markan double kaliya dhigi doonaa maadaama aan ku aadiyo wax yar soo aadi kadib double kali ku dheh waxaa sameysaa color filkiisa bedel markan kalarkiisa loo taagan waxaa samey kalarkiisa waxa ka dhigtaa leenahay orange ka dhigaa leenahay. Marka waxaa sameynaynaa midkan blue-gan haddana koobiyeynaynaa alt adoo lahaay kan qabo haddana mid kale sorry control Z marka la soo laabo kow alt qabo kadib soo qabo halka mid kale keen isla kii la soo koobiyey kalarka ma bedeli doono. Okay, labada maadaama hadda kalarka waa qurux badan yahay. Okay, course-ka soo qaad oo course-ka maadaama uu kan yahay ku aadiya leeyahay centerka kadib size-kiisa wax yar yareyn doonaa control 0 hadduu ka dhaqaaqo soo laaban doono. Okay, intaas markaa sameeyo waxaa kale u baahan inaan soo qato qoraaladan aan rabnaa soo qato ka hor waxaan sameyn doonaa shiiba sameyn doonaa inta kale koobiya ka sameyn doonaa. Okay, sidee u sameyn karnaa waa shiib yar rectangle soo qaadan doonaa halkaan imaanaynaa kadib waxaan sameynaynaa rectangle tool halkaan ku sawiri doonaa ilaa halkaas leekan sawiri doonaa. Okay, maadaama halkaas uu leeyahay kalarka waxa dhigi doonaa kalarkan dhigi doonaa kalarkaas yaa leenahay kadib waxaa waaye alt la qabo mid kale ka sawir shift plus alt la qabo shift plus alt adoo lahaay mid kale ka sawir halkan keena leenahay. Okay, kana wax yar soo qabo. Okay, intaana sameynay maxaa kala sameynaa waxaa sameynaynaa qoraaladan soo koobiyeysan tusaalaad kan Adobe Photoshop ama Adobe Photoshop double click dhigi doona kadib waxaa sameyn doona marka double click dhaho koobiya ku sameyn doona control C yaa leeyahay halkaan imaanaynaa ka siiyana soo qaadana inta dul imaanaynaa marka maxaa sameynaa qoraalkan markaa ku imaa control V yaa leenahay kadib waxaa waaye control A dheh maya weli ma soo koobiyeynin waxaa soo koobiyeynay course-ka dibisa noo koobiyeysan control C dheh halka imaaw kadib waxaa sameysaa qoraalkan course-kan kala dulta kadib control V ku dheh. Okay, control A dheh dooro kadib waxaa sameysaa size-kiisa yaraa leenahay size-kaas yaraan doona weli waan sii yareyn doona. Okay, halaas markaa la keysiyo kadib halkaana keeni doona intaana ku aadin doona centerka noo ku aadinayo kadib waxaan leeyahay qoraalka wax yar weynayaa leeyahay ilaa halahaas ayaa la ekeysiin doonaa anoo ku aadin doono centerka. Okay, center ku aadine. Okay, intaana samee waxaa kale u baahanahay qoraalkan yar inaan soo qaato koobiyo sorry kan meeshiisii geelay alt la qabo kan soo koobiyey halkaana keenana qoraalka waxaa rabaa size-ka inuusan isbedelin midka kale waa soo koobiyi doono. Okay, halkaana imaan doona Adobe Illustrator tagi doona maadaama qoraalkan aan u baahanahay muhiimada qoraalka kaliya inaan ka saxdaa rabaa double click dheh kadib control C dheh halkaan imaaw kadib waxaa sameysaa kan double click ku dheh
kadib asigana waxaa ku samaysa control v ku dheh automatic waa qaadan doona magaca ayaa isbedeli doona okay maadaama magaca isbedelay qoraalkii haddana siskiisa weyn yahay qoraalka maadaama siskiisa weyn yahay waa samayn doonaa double click ku dheh kadib waxaa samaysa qoraalkiina fartiisa yar ayaa leenahay ilaa halahaas ayaa la ekeysiin doonaa okay halahaas ayaa la ekeysiin doonaa hadda meeshan waxaa noo yaalo Adobe Photoshop aa noo yaalo waxaan sameynaynaa Adobe Illustrator aan rabnaa ku bedelo aniga waxaan qoraalka yar ayaa leenahay زائد أو يري كنترول دامر صلاو كدي قراكي دور عليها كدي حسنا قراكينا سيس كيسة إلا خلاص لك يدين دوما أوكي محاسبة أنا مركب ما يعرفنا يقدر أنت يرى دورن دورا كدي إلستريتر بدل إلس دبل الواي أدوبي مركادو سبيس يرسي Adobe Illustrator ku qori doono okay wax yar control leh maadaama hadda uu yahay siskiisa 10 waxa ka dhigtaa 9 ama 8 kaliya leenahay okay ila 8 ka wadinina okay dib ma lahan 8 ka wadinina okay ama haddaad control t inta dhidi waxa sameyn kartaa tartiib adoo isticmaalaya by shape adoo isticmaalaya waxa sameyn kartaa si tartiib oo yareyn kartaa ama ugu weyneyn kartaa okay korna waxaa sameysaa wax yar weynee leenahay aan badneen weynee leenahay okay waxaan soo celi kor okay intaan ku dhaafayna okay midkan kale rabo inaan sina sameeyo waxaa rabaa Adobe Premiere Pro inaan qoraal rabaa double click dhigi doona kadib qoraalka magaciisa kaliya inta waxaan bedeli doonaa intaan aan bedeli doonaa bidada ay qornaato intaan bas bedeli doonaa anoo dhihi doono Adobe Premiere Pro intaan sameynta kadib control C dheh ama control A dheh kadib waxaa sameysaa size inta ka dhigta 8 bas 8 number ku qor kadib waxaa halkaas ku sii diyaa leedahay okay intaan la igu sameeyay okay maxaa kale ii harsan waraaladan yara ii harsan waxaa barashada Adobe Photoshop software ka barashada xas amal waay sample waay laakiin hadii hadda qoraal real ay gali kartaa hadii aad rabtid aniga laakiin sample ku soo qaatay waxa waay kaliya sample control C aa leeyahay halkaan ay imaan doonaa halkaan marka tiiriyo soo qaadan doona halkaan ay imaan doonaa kadibna halkaan control V ku dhigi doona okay control V marka control A leeyahay size maadaama uu weyn yahay aniga waa yareyn doonaa waxaan la ekeysin doonaa ilaa halahaas kadib waxaan leeyahay weli maadaama uu 7 yahay okay halaas ama ku diisan doona okay kadib waxaan sameynaa alt la qaban doona copy ka sameyn doona marka la copy ka sameey ilaa waxaan wax ku celi ilaa 4 xab amal oo baahan okay mid kale hadana alt la qabo copy sameey alt la qabo copy sameey leeyahay ka waxaan korey alt qabo copy la sameey leeyahay alt qabanayna alt qabanayna alt qabanayna mid kale halka hoos ka keeni doona alt qaban doona mid kale halka dhigi doona gidaal maadaama halkaan soo raacay midkan kale keena leeyahay wax yar hoos u dhigan okay sidoo kale mid kale sameyn doona kana mid kale halkan ku sameyn doona okay maxay harsan waxa ii harsan inaan kaliya soo qaato si bilaash ku bar maadaama ii qoran tahay numbers kana u baahan numbers ka ayagana waxa waaye dabac si loo qor waa tagaana numbers waxaan sameyn doona halkaan ay imaan doona kadib halkaan qori doona z kaliya qori doona kadib waxa le control A le waa dooran doona kadib farteeda ama qoraalka waxa uu bedelo type kana uu bedelo oo icon uu bedeli doona kadib maadaama icon liigu bedelo halkaan ay imaanayna isla icon galtiisa ay imaan doona waxaan ku qori doona numberkeena eber 6 xalaaleyna 2 lana calaamada soo dhex gelin doona numberka ku doona eber 6 xalaaleyna 5 control A dheh farta waxa kale taa leenahay impact nooriya leenahay ay imtaabo si automatic way soo bixi doontaa okay maadaama impact ka dhigtay kadib halkaan keeni doona qoraalkayga waxa sameyn doona ana ku aadina icon-ka ku aadina okay marka waxa ra lambarada mid kamid ah kalarkiisana bedelo kana ra shantayna kalarkiisana bedelo kadib kalarka noocan ka dhigaa leenahay kalarka maadaama la bedelay kana waxaan sameyn doonaa
kan waa tagi doonaa iconkan yar oo halkan ku yaalo asina waxaa waaye kalarkii bedelale kalarkan edit oo huruudka ah kadib waxaa noo harsan inaan qorno emailka dabcan waa taqaanaa qoraal yar waaye asina waa soo qaadan kartaa wixii fikrad ama hal-abuur hadaad samayn kartid calaamadda waxaa taabata taabo bes email waaye iconkiisa kuusoo bixi doona icon marka waa soo qaadayn aniga waxaa waaye halkaana geyn doonaa kana ku aadin doonaa booskiisa kadib qoraal yaraa soo qaadan doona halkaan imaanaynaa kadib waxaan qoranaa emailka qori doonta aniga emailka engineer aa leeyahay mbo aa leeyahay shift plus at aa leeyahay gmail.com control a leh maadaama taybka ay tahay farta ay bedelan tahay waxaa ka dhigtaa in bacteria aa leenahay kadib asaas bedeli doona magac oo isku bedeli doona kadibna adiga soo qaada halkan keenaa leen farta maadaama kalarkan uu yahay waa bedeli doona qari doona kalarkan qari doona okay waxaa ii harsan inaad soo qaato keliya get now waa rabaa inaad soo qaato aydan dabcan waxaa waa get now uma baahna in lasoo koobiyo halkaan imaanaynaa aniga waxaa maba u baahanin halkaan imaaw kadibna waxaa sameysaa get now halkaas ii qoraa leenahay get minus now qormis haddaad waxaa samayn kartaa shiba dhex gelin kartaa laakiin hata waxaas uma baahni hoostaan imaan doonaa kadib waxaan samayn doonaa hoostaan waxaan qori doonaa f oo facebook y oo youtube ah iyo t oo tiktok ama twitter ah kadib control-eeda soo furo farta kadib waxaa kalita taybka horiyaa leenahay farta waana loo bedeli doonaa maadaama madala bedelay aniga intaasoo nooga fil okay shiib yara rabaa inaa hoostan ka sameeyo kadib shiibkaas yara aniga aan sameynaayo sorry kaliya beleeda lehe kan u baahni oo angalkan ah waxaa rabaa ted angle tool inaan soo qaataa raba halkaan imaan doonaa halkaas ugu jiidi doonaa ilaa gees ku tagaayo halkaas ugu jiidi okay kadib marka halaha sameeyo qoraalkaas yaraa soo qaadi doona halkaana keeni doona hoostaan koraa geyi doona wax yar qaad halkaan gee kadib control t aa leenahay qoraalkan ilaa halkaan gee aa leenahay okay qoraalkan maxaa rabaa inaan ku sameeyo rectangle tool soo qaado kadib kalarka bedelaa leenahay kalarka waxaa dhigta kalarkan kaliya leenahay kalarka maadaama ka bedelnay kadib waxaan u samayn doonaa waxaan u sameynaynaa control waxaa leenahay control c waxaa adoo islaa control shift calaamadda arrowga waxaa rabaa kanaa rabaa inaan ka hoos mariyo bluegan saas darteed maadaama aan rabno inaan ka hoos marno kadib waxaan samayn doonaa kanaa ka hoos marin doona arrowga la taabo ka hoos mari doona kadib ka hoos mari aa leenahay kana ka hoos mari kana ka hoos mari okay maadaama aan ka hoos marnay kadib waxaan samayn doonaa okay maadaama aan ka hoos marnay kadib waxaan samayn doonaa asaa dul tagi doona kadib waxaa waaye rectangle-kan tagi doona kadib waxaa rabaa stroke yar inaan u sameeyo ayaa raba kale kana u dhigi doona strokes yar ayuu beenaa rabaa inaan sameeyo waxyariis halkaan amana halaas amana gaarsiin doona okay kadib halkaas ku sii jeedo okay aad aa umahadsantihiin dhuuma baragtay asalaamu calaykum waraxmatullahi